marka hore waxaan aad iyo aad waxaan leenahay hambaliyo shirka kan oo ah shir dhaqan oo ay iskugu yimaadeen beelaha Habargidir halkan maanta inay shirweynahan ay ka furteen qaybtii labaad hadda ay socoto wajigiisii labaad waxaan leenahay hambaliyo guud ahaan baa leenahay shirkaasi waxa weeye sida ay waxgaradkii aan dhagaysanayna noo sheegeen wuxuu ka dhashay baahi loo qabo maantay beeshaan iyo Soomaaliyaba u qabto nabad iyo dib u heshiisiin iyo maaragtay isdaaweyn cid allaala cid wax kala tirsanaysa Habargidir markay hadee ayadu waa loo yahay waa beel soo jireen oo weliga jirtay inta Soomaaliya ay jirtay waxaana loo sheegay inay ka soo wareegtay muddo 100 sano ah ku dhow 100 sano ku dhow shirkii ay sidaan oo kale isugu timid degmadan Horyooda ay isugu timid ayay waxay uga tashatay arrimaheeda uga tashatay waxay uga tashatay arrimaha ay ayadu isku dhaqmayso dhexdeeda iyo dadka Soomaaliyeed oo la dariska sida ay ula dhaqmayso waxaan maaragtay Ilaahay fadligiisa in mar kale maanta ay garatay inay u baahan tahay taladii oo kale inay halkan ka unugto oo beeshu dhaqan ahaan ay dib iskugu maaragtay ay isku eegto ayadu beeshani waxay soo gashay halgan dheer bay soo gashay halganka dheer ay soo gashay waxa laga yaabaa inay natiijadii iyo meeshii loo socday inaan la gaarin ahaa dhaqan horumar dhaqaale deegaan deked muxuu ahaa horumar deegaan mid dadka midna inaan la gaarin baa muuqata baahidaas keenta marka in dib la isku eego oo beeshu sida dhaqanku ay halkan ay ayagu shirka ugu qabteen shirkaas waa soo dhaweynayna waxa weeye marka hadda anaga waxa nooga furan shirkan shir siyaasadeed ma ahan shir nin siyaasi ama dawladda ku jiro ama xisbi ha ahaado ama cid kale ka socde dana siyaasadeed oo gaar ah meeshani noogama muuqato mana u malaynayo boosinu uga furan yahay kaliya dadka siyaasiyiinta ahi waxay reexayaan oo hambalyo siinayaan oo la garab istaagayaan odayaasha iyo waxgaradku shirkooda in lagu himad geliyo weeye sababaha aniga iyo kuwa kaleba iyo inta yada fadhida iyo kuwa imaan doonaba waxa weeye dhiirigelin weeye waxaan u imaanaynaa hambaliyo weeye waxaan u imaanaynaa waxa la rabaa marka shalay mar haddii raggii shalay joogay 100 sano ka hor ay wax unkeen maantay oo dadka ka tira yara oo ka aqoon yara oo ka deegaan yara oo ka dhaqaale yara hadday intaas unkeen maanta xilligan casriga ah maxaa laga sugayaa salaadiinta iyo waxgaradka waxa laga sugayaa wixii hore hadday 100 sano lagu soo mooday mid 200 300 400 500 sano insha Allah taala cidii imaan doonta jiilba jiilka ka dambeeya waxay iska dhaxlaan inay meesha ka soo baxaan baa loo baahan inta kadib waxaan rabnaa si marka arintaas loo gaaro xagee beeshan xagee bay naga haleeshay in ujeedadii iyo hadafkii iyo wixii shalay loo hawl galay loo halgamayay
in sidii la rabo loo gaari waayo maxaa asal u ah waxaa asal u ah waxa weeye siyaasad qof ka yimid siyaasad oon loo aan muxuu ahaa aan loo tala badsan oo aan cid loo oran maantay qofkaani ma yahay qofkiina hogaamin lahaa ma yahay ninba sibuu ku yimid ninba farasta meel buu ka soo fuulay waa la yaacay yaacidaasaa waxay noqotay dadka hadday tahay muxuu ahaa ama dhaqanka iyo hadday tahay siyaasaddaba waxaa dhici karta dadkii hogaamin lahaa boqolkiiba dad saxa inaysan u soo hormarin baa dhici karta maanta mar haddaan isku nimid waxaa loo baahan yahay oo aan kula dardaarmayaa dhaqanka halkan shirweynuhu uga furan yahay waxaan kula dardaarmayaa in muxuu ahaaday dhaqankii in lagu soo celiyo dhaqankiisii in lagu soo celiyo cidda dhaqanka hogaaminaysana inaynan u maaragta aragti yaraan inuu noqdo qofkii rasmiga ahaa aniga waxa layga dhigo iyo aniga ha lay hormariyo maanta ha laga leexdo maanta yaana wadi kara war yaana dhaqi kara yaa dadka isku keeni kara dadka markii la isku keeno annaga yaana heshiin kara dhexdayada markaan heshiinana annaga iyo beelaha Soomaaliyeed ee hawiye ee Soomaaliyeed ee daarood ee digili mirifle ee direed ee waxna dhex mareen yaana dhaqi kara yaa nagu hagi kara yaa wax nagu toosin kara qofkaas iyo dadkaas weeye dadka la rabaa inay soo hormaraan waxa soo hartay oo aan ka dhicin midda siyaasadda waxa weeye xildhibaan baad leedihiin waxa soo hormarinaysaan midka dadka ugu tuugsan midka dadka baqtiya cunka ah midka aan xishoonayn midka qaaqlaha ah yaa odagu wuxuu yiraahdaa kan horta xagga ii dhaaf cidda iiga dhaxbaxo reerka ha aado baarlamaankii ha aado bal horta kan iga dhaqaaji waxa asaga qaylo badan naga dira marka kii madaxnimo raba ee doorasho raba ee galmudug haddaan ka soo qaadno yaa beeshaani ayadu kaligeed male galmudug maamulkeeda qayb bay ka tahay haddiise ilaahay ka dhigo in ayaga beel ka midi qof ka midi inuu noqdo madax ka noqdo galmudug keebuu noqonayaa calaamadee leeyahay sumadiisu waa sidee muxuu u eeg yahay maxaa laga yaqaan muxuu samayn karaa ma yahay kii maantay dadka Soomaaliyeed idinku xariirin lahaa ma yahay kii idin xariirin lahaa adinka ma yahay kii dadka Soomaaliyeed u keeni lahaa iyo dawlad goboleedyada Soomaaliyeed ma yahay kani waa cabdi qaybdiid xagga iska dhiga aniga iyo ragaygii waxaan soo qaadan lahayn waxaan soo biin lahayn waa la soo biiyey xagga iska dhiga maantay haddii shalay nala duraamaye haddii shalay wax nala ka sheegaye maanta ha seeginina laba ha seeginina dhaqan suuban xishooda diin leh aqoon leh diinna isku celinaya dhaqanna isku celinaya garasho isku celinaya faham isku celinaya aqoon isku celinaya ha seeginina siyaasadana waa sidaas oo kale dadka yaa wada يعني dadka waxa wada dadba hogaan baa wada ama waa dhaqan ama waa mid siyaasad ku yimid hadii halka ka dulowdo ma sugaysid in wax ku hagaagaan ma sugaysaan waxa la rabaa dhaqanka beeshan hadii Allah idmo waxaan doonaynaa inuu noqdo mid midaysan oo dalka Soomaaliya iyo dalalka walaalaheena Soomaaliyeed oo dariska ah mid ka celiya wixii dhibaato ah oo la wado wixii wanaagana kula macaamil tamaan laga doonayaa
anigaa imid anaa iri anaa raba anigaa raba nin yidhaahda war bal wixii hore waa soo marnaye waxa dambe aan hal laysdaba qabto dhinacaas weeye meesha aniga warkaygu u badan yahay yacni yaana ku mashquulin qofka xuni aduu ku dilayaa adinkuu idin kala dilayaa adinkaya dawladdu isku kindilaya adinkaya darisku isku kindilaya qofka xuni dhibaato keenaya